هنقولي نفتيز بس تلها ما هي وليتي ميرنا أنا وليتي ميرنا ولا قري ولا همي تبقوا سرا وبالسودي ولا قري ولا همي تبقوا سرا تغطاوذي ورجومي بالواقوي قيدو بركاس مفمود ملئي تغطاوذي ورجومي بالواقوي قيدو بركاس مفمود ملئي Babub ikanul gareli mayang terlebar ya border wala kisade Babub ikanul gareli mayang بقر يجي يا أبو مني ولا كيف سدي قلب جيل قليل قياس مدي وللقرية وسمدو فلا قلب جيل قليل قياس مدي وللقرية وسمدو فلا أوكي وسفرا وقالا وفضل طفول وبعض اللي فريق بوكي وسفرا وقالا بوكي وسفرا وقالا وفضل طفول وبعض اللي فريق وفضل طفول وبعض اللي فريق وبعض اللي فريق وبعض اللي فريق بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدنيال iyo marwooyin dacalada adduunka meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena gaarka ahaa aanu kaga hadlayno digniinaha ama khataraha ku soo fool kale koonfurta Soomaaliya sida aad ka warqabtaan koonfurta Soomaaliya ilaa iyo kun talaabo ayaa laga rabay inay hore u qaadaan maantay waxay hore u qaadeen kunkii talaabo waxay hore uga qaadeen talaabo kamid ah 999 talaabooyin ayaa u dhiman oo ina khasab ku tahay waajib ay ku tahay in ay talaabooyinkaasi 999 ay qaadaan si koonfurta Soomaaliya ay u gaadho gobonnimo iyo ma arkayse macnaheedu masiiri ah taasoo ayaheedu ay kaga tashanayso isla markaana ay kaga baxayso 60 sanadood gumaysigii nidaamka dawliga ahaa ee gudaha lagu hayay haddaba maanta farxad waa ay dhacday farxadda dhacday laakiin
waxaad ogaanaysaan in boqolaal khatar ah ay ma arkaysa koonfurta soomaaliya ay wajahayso khatarahaasi waa kuwo duugan iyo kuwo furan oo ummadda iyo caalamka oo dhan ay wada arkeen weeye waxaan rabnaa horta guusha la gaaray maanta annagoo wada og inaan afka ku balballaarino aan dhahno ummadda koonfurta soomaaliya rabitaankeedu shacabkan dabayshan ay wadato isla markaana dabayshoodu ay xoogga badan tahay waa ay guulaysatay boqolkiiba 99 inaan dhihi karno qodobadii ugu dhibka badnaa qalcadihii ugu dhibka badnaa ee madaxweyne farmaajo oo loo yaqaano subag buure iyo ra'iisul wasaarihiisii khayre ninka loo yaqaano oo wasiirka koobaad ugu magacaaban dhibaatooyinkii ay soo amaamudeen ma aysan ahayn keliya dhibaatooyinku balaan keliya ma aysan ahayn sidaan hore u sheegnay aan kaga naadin jirnay kaga dhawaaqi jirnay meel kasta iyo baraha bulshada iyo ma arkaysa telefishinada iyo idaacadaha ee warbaahinta ku bahawday Southern Media Cooperation ee koonfurta Soomaaliya waxaan hore u sheegnay in nimankan ay wataan balaan balaan B balaan C ilaa iyo balaan Z balaan haddii uu guul daraystana balaan B ay u bedelan doonaan balaan B hadday guul daraysatana balaan C ay ilaa iyo balaan Z buug iyo iskaachal ayaa u qoran baan idiin sheegnay iskaachalkaasi ayaynu ku wadi doonaan inta ma arkaysa bur iyo biyo looga kala baxayo oo ummadatan masiirkeedu ay si toos ah u guulaysanayso ama inta ay guulaysanayaan qodobkaasi waa qodob meesha ku qoran laanahu maba qoraan nimankan la yiraahdo farmaajo iyo khayre ma qoraan ixtiraam ma qoraan dawladnimo ma qoraan ma arkaysa shuruuc iyo kala dambayn ma qoraan waxa ay qoraan waxay tahay shan farood iyo calaacal sida hadalka raagay ee Soomaaligu ahaa nimaan shantaadu ka celin sharci kaama celiyo luuqad kale ay yaqaanaan haba yaraatee ma jirtaba sida daraadeed balaan waanu soo aragnay balaan wuxuu ahaa Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo magaalada Muqdisho ku sugan oo gurigiisa iska fadhiya markii shacab weynahan koonfurta Soomaaliyeed ay dalbadeen ay dhaheen Mukhtaar Roobo adiga ayaan u baahanahay hogaankaagisan inaad hogaamiye noo noqotid dhibaatooyinka ma arkaysa nagu macnihi dulliga nasaaqaysi aad nooga kor qaado Ilaahay idamkii oo shacab dal iyo dibadba ay soo wactameen oo isaguna uu aqbalay baydhabo markuu u soo xaadiri gaaray ee baydhabo uu aadi gaaray Mukhtaar waxaad ogtihiin in ninka la yiraahdo farmaajo iyo khayre ay iyagu ma arkaysa ay u tageen habeenimo ay ku dhaheen 80 milyan qaado shilin Soomaali ah dollarka Mareykanka ah iska raaxayso jaga midda rabtid qaado iska fariiso ha isu sharaxin sababta sidaas loo leeyahayna ujeedada ka dambaysa ay tahay ahaydna in ummadan aayaheeda iyo mustaqbalkeeda aan aysan gaarin aysan ka tashan Mukhtaar dhaguhu ka furaystay balaan waa uu guul daraystay Mukhtaar baydhabo aaday haddana waxa inoo xigtay oo aanu wada aragnay in goor galab ah gaatin lagu qaado magaalada baydhabo oo ma arkaysa wasaaradda amniga iyo sirdoonka Soomaaliya ee faadiyasiin ninka ay leeyihiin iyo caloolku soo markaas sirdoonka Soomaaliya haystay iyo foosi istaag in loo diray magaalada baydhabo iyagoo wata askar gaaraysa 50 askar oo diyaarad ku wata si Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur airportka Shaati Guduud International Airport ay ugu yeeraan kadibna markuu meeshaas yimaado ay u katiinadayaan isagoo katiinadaysan xamar ay u keenaan si doorashada looga baajiyo balaan B waa uu baaqday haddana balaan C waxay noqotay in telefoon macnihi habeen iyo maalin lagula hadlo Mukhtaar Roobo oo madaxtooyada Soomaaliya macnihi waxba aysan u reeban jaga ay u ballan qaado uu diido uu yiraahdo shacabkayga ay baahan balaan D wuxuu ahaa in beelaha shabeellada hoose xooga ku haysta ee galguduud iyo mudug ka soo hayaamay oo ma arkaysa cambaha macnihi geedaha cambaha xataa qalajinaya ee moobilada ka sameynaya oo carwooyinka ka furanaya xaasidnimo inta ay ka gaareen daraadeed waa maal iyo dhul aadan lahayn ma arkaysa ay u direen Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur si gorgortan uu la galo ay ku yiraahdeen annaga ku bumbuuninayna korna ku soo saarayna ma arkaysa rabitaankeena noo fuli shabeellada hoose inaad macnihi noo gadaal fariisatid Mukhtaarna uu ugu jawaabay shabeellada hoose haddaad leedihiin waan idin kala tashan haddaydan lahayna waad ka baxaysan dadkii iskale ayaa lagala tashan waa hadal rageed oo saliima nin xaniye kuuskuusan oo muwaadin 14 laga rabay inuu ku hadlo balaan D wuxuu ahaa in diyaarado oo ma arkaysa wada macnihi gaadiid bambooyin macnihi gaadiidkaan xabada karin bulud buruufyo
iyo ma arkayse wasiirre ay la socdaan oo deegaanka asal ahaan ka soo jeeda laakiin u adeegaya farmaajo iyo khayre loo dira magaalada baydhabo caalamkii oo indhahoodu shanta ay yihiin oo la wada arkayo oo taariikhdu meel ay ka dhacday aysan jirin taas oo kale macnihii inta taariikhda soomaaliya la og yahay inta dowlad soomaaliyeed oo federaala way jirtaa la yidhi meel taariikhda ay ka dhacday wasiirro macnihii deegaankoodii ka soo jeeda in dowladdii cashuurtii dalka intay qaadato dhammaantood ay u dirto meeshaasi ay qarash geliso ooy ma arkayse ummadda rabitaankeedu ay burburiso ooy ma arkayse dhulka geliso taariikh aan la arkay aan ahayn baydhabo in lagu sameeyey subag buure ninka la yidhaahdo ama madaxweyne farmaajo iyo khayre inay sidaas sameeyeen waanu aragnay balaan baan haddana soo qaadanaynaa qorshahaasi markii uu baydhabo ay ka fuliyeen uu fashilmay oo ummaddii rabitaankeedu ay la soo istaagtay annagu sidaa ma doonayno waxay isku dayeen haddana in qabiilaadka ay isku diraan baraha bulshada ay ku sii daayaan dad qabiilaadka kala caaya si qabiilaadka koonfurta soomaaliyeed ma arkayse madaxa ay isula galaan doorashada ay u baaqato caalamkana marmarsiyo loogu helo oo la yidhaahdo baydhabo naareed bay noqotay ee baydhabo jannaad way ka baxday sidaasi daraaddeed doorasho laguma qaban karo si doorashooyinka macnihii loo baajiyo ama loogu soo wareejiyo marka iyo baraawe oo markaasi farmaajo iyo khayre ay ku diyaarsadeen taliyaal ciidan oo weliba nin genaraal ah ciidamo macnihii wuu goostay inta la yidhi ama wuu gadooday sidaa gacanta loogu geliyey qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose haddaba walaalayaal balaan f baa soo haray qorshihii isagaa wuu fashilmay oo ummaddii waxbaa loo sheegay in arrintaasi aysan shaqo ku lahayn ummadda deegaanka iyo ummadda koonfureed waxa dhibaatadaasi samaynayana ay yihiin dadkan shisheeyaha ah ee waraabayaasha ah dhurwaayada ah balaan f waxa ay noqotay haddana in macnihii guddigii doorashada la kala diro iyadoo ujeeddada ka dambaysa ay ahayd waxa la raadinayey in sheekh mukhtaar roobow cali abuumansuur macnihii doorashada qaabkii looga reebi lahaa guddigaa isaga ah waan ka sii dhawaajinnay khiyaanooyinka uu wato guddoomiyaha baarlamanka ayaa 500 kun oo dollar la siiyey si arrintan oo dhan inqilaab ugu sameeyo si mar un mukhtaar roobow looga reebo meesha arrintii way shaqayn weyday balaan g iyo balaan h iyo balaan d iyo balaan z way u dambaysaa laakiin maanta waxaan ammaan ballaaran oo kaliya laab ah aan u soo jeedinaynaa annagu haddaanu nahay wariyaasha koonfurta soomaaliyeed ilaahayga casiiska ah oo 7 samaawaad abuuray arlooyinka abuuray isla markaasna ina garansiiyey khiyaanooyinka nimankan ay ma arkayse soo macnihii maleegayaan qoolabka ay samaynayaan na fahamsiiyey oo annagana nagu quwad siiyey ummaddeenna inaan u sii sheegno ummaddiina ay garatay waxaan rabaa marka labaad inaan mahad ballaaran aan u soo jeediyo shacabka koonfurta soomaaliyeed meel walbo ay joogaan isku duubnaanshaha ay sameeyeen iyo sida ma arkayse isku duubnaanshahooda macnihii uu u shaqeeyey isku duubnidana qaran loogu difaaci karayo inaan uga mahadnaqo isla markaana aan idhaahdo shacabow towraddiinu waa ay guulaysatay 99% waxa ka dhiman oo qura waxaa weeye hal weeye sidaasi daraaddeed yaan la caajisin waad guulaysan doontaan waxaan rabaa marka afaraad inaan ammaan u soo jeediyo ugaasyada iyo malaaqyada salaadiinta jamhuuriyadda koonfurta soomaaliyeed iyo xildhibaanada koonfurta soomaaliya oo maanta markay gaadhay yaa maali jirayey markay gaadhay macnihii arkay indharun bay ku ooyaan rabitaankooda shacabkoodu arkay wacalaykum assalaam min allahi wabarakaatu arkay meel loo noqdaa in aysan jirin oo doontu dhinac walba biyuhu ay ka soo harqinayaan arkay maanta haddaan la badbaadin ummadda koonfurta soomaaliyeed rabitaankeeda iyo macnihii maslaxadda guud ee ummaddan mabaadiida aafooyinkii dhacay iyadoo wax lagu qaadanaya haddaan la garan fahmay in musiibo aan macnihii laga baaqsan karin hadhowna aan laga badbaadi karin dalka iyo dadka iyo diintaba ay ku habsan doonaan fahmay xildhibaanadaasi iyaga ah sida dareenka leh
ee waddaniyadda leh ay uga soo fal celiyeen dhambaalkii shacab weynaha koonfurta soomaaliyeed ugu dambayn dareenkoodu ay ku soo bandhigeen dhulweynaha webiyadu ay isku go'an yihiin ee laga soo bilaabo xeebaha baraawe marka afgooye wallaweyn buurhakaba bardaale waajid tiyeeglow bakool iyo dhammaan degmooyinka dalka koonfurta soomaaliyeed bannaanbaxyadii waaweynaa ee qabaliga ka baxsanaa qarannimada matalayey oo dareenka ku dheehna dhiifoonaanta iyo ma arkayse dhamhinta qarannimadoodu iyo gobonnimo inay ku joogaan adduunka maalmaha ka dhiman sharaf iyo cizi ee karaamo ay ku noolaadaan iyagoo harsanaya qarannimadii astaantii waa lagu yiqiin ummaddan koonfureed sharafkii ay ku lahayd guud ahaan geeska afrika inay soo ceshatana diyaaray u tahay muujintii ay shacabkaasi muujiyeen dhawaaqooda falcelintii ay ma arkayse ka soo bixiyeen xildhibaanada koonfurta soomaaliyeed waxaannu leenahay haddaannu nahay bahda saxaafadda koonfurta soomaaliya ugu cadcad xildhibaanow dhammaantiina waa mahadsantihiin waxaannu idin leenahay waa ay idin xusi doontaa taariikhdu oo waxay macnihii maanta waxay taagan tahay kala baxnaa waxay ahayd guddigan doorashada guddi tijaabadii ugu weynayd ee balaanadooda sii liicaya subag buure oo farmaajo loo yaqaan iyo kayre macnihii makrigay soo maleegayeen oo ay ka soo maleegayeen kalaabka villa soomaaliya oo haykallayda ay ku dhex dhaqlayso tijaabadii ugu weynayd soomaali weynna ay idin fiirsanaysay shacabkiinnina uu idin daawanayey bay ahayd tijaabay u ahayd waxay sugayeen in maanta ay guulaystaan bay sugayeen waxaana la eegayey baarlamaanka koonfurta soomaaliyeed oo adduunyada meel ay ka dhacday aysan jirin xitaa dawladdii afweyne milatariga ahayd baarlamaan inta gobol laga soo qaado ilaan odayaashuba waa baarlamaane caasimad la isugu keeno deegaan aan deegaankoodu ahayn la tashkiiliyo oo lacaga la siiyo baskoolada la siiyo deegaankooda haddana dib loogu celiyo oo la yidhaahdo ordaha dadkiinni soo laaya ordaha gobonnimadiina iibsada guryihiinni macnihii ku tunta deegaankiinni ku tunta la yidhaahdo waxaan dhicin lagu sameeyey macnihii jawaabtay ka sugayeen ma aysan helin laakiin tijaabay ahaydoo waxay fiirinayeen dadkan siday u tashkiiliyeen idaha waxaa la yidhaahdaa waa la gunjiyaa iduhu marka la lisayo la iskama lisi karo oo iyadoo caana xambaarsan neefka idaha ah ayaa haddana waxay u baahan tahay in macnihii la toontoomeeyo oo la toonyeeyo oo macnihii la gunjiyo si ay u godlato markaasaa caanaha dhiiq looga siiyaa haddana waa la gujiyaa dhiiqaa looga siiyaa macnihii waxay fiirinayeen dadkan la soo gujiyey oo si kasta macnihii loo soo tashkiiliyey siminaaro beena ah loo furay waxaa la eegayey bal in rabitaanka shacabka ay ku shaqayn doonaan ama rabitaanka kayre iyo farmaajo ay ku shaqayn doonaan baa la fiirinayay halkaa waxaad ka garatay waa maanta waxay arkeen maadaama rabitaanka shacabka ay sameeyeen xildhibaanadu farmaajo iyo kayre maanta wadna xanuun baa haya wayna shubmayaan waayo waxay og yihiin in balaanadoodii ugu dambeeyey aysan shaqaynaynin balaan f waa lagu guul darraystay tijaabayna ahayd waxay eegayeen war dadkan ma dadkooday u hiilin doonaan iyo dalkooda iyo diintooda qarash idinka qaate mise macnihii adinkay idin shaqayn doonaan oo waxay noqon doonaan dameero malab wada alxamdu lilah ilaahay baa mahadda iska leh xildhibaanadu sidii awalba macnihii laga sugayey waa ay sameeyeen shacabka ay ka sugayeen lacagi waa qaadasho codkana waa in rabitaanka shacabka la siiyaa way sameeyeen waxaannu leennahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin ilaahay addoommadiisii markuu la hadlayey wuxuu yidhi qofka addoommadaydii u mahadnaqi waaya ee wanaagga u sameeyey
anigana iima mahadnaqayuu yidhi anoo rabbulcarshul cadiim ah xataa iima mahadnaqayo waxa aan ula jeedaa xildhibaanada dareenka ay muujiyeen dhammaanteenna shacabka koonfurta soomaaliyeedow maadaama hadal ilaahay iyo xadiis nebiba uu yahay qofka wanaagga sameeya bini aadamka in loo mahadnaqo inaad u mahadnaqdaan in loo mahad celiyo oo la yidhaahdo xildhibaanow waa mahadsantihiin laakiin hal tallaabaa dhiman tallaabada qudha ee dhiman oo ma arkaysa 9 milyan gilgishay isla markaana habeen iyo maalin ay la jiifan la'yihiin waa rabitaankooda oo mukhtaar roobow cali abuumansuur ah magac miskiin lagama ahan maalna mawla loo qabaa ninkaasay ummaddu doonaysaa oo dal iyo dibad ay u baahan tahay oo mansab iyo lacag iyo waxba aan rabin lacagna laaluush aan dhiibin doonaya ummaddan in uu badbaadiyo ilaahay baa badbaado iska leh sidaasi daraaddeed falcelintiinnii maanta tan xigta ee 28 waxaa la sugayaa mukhtaar roobow cali abuumansuur inaa ummadda miiska u soo saartaan dalku ha xoroobo dalku waa la wada leeyahee nabad ha loo kala degeeye mukhtaar roobow inaad dig soo siisaan baa la idinka sugaya maadaama shacabka meesha aad u matalaysaan 4 sano ee soo socotana qof idinla hadli karaa aysan jirin annagaa ballan qaadayna one individual oo xildhibaanada koonfurta soomaaliyeed ah haddii rabitaanka shacabka aad doorataan wixii ma arkaysa khaladoo idinka dhacay xaladhalay inay tahay isla markaana 4 sano oo kaamil ah aan lagu noqonaynin xildhibaanada koonfureed in la bedelo absolutely shacabku sida hadda ay rabitaankoodu ay ula garab taagan yihiin musharaxa ay doonayaan ayna idinkuna idin garab istaagi doonaan malaaqyada ay idinkala hadli doonaan salaadiinta idinkala hadli doonaan qodobkaasi meel ayuu inoogu xidhay xildhibaanow waxaan rabaa qataraha dadku aysan arkaynin inaan meeshaan ka sheegnaan doonayna annaga afkeennu soor keliya looma dhambalin hadalna waa loo dhambalay runta inaan sheegnana ilaahay baa nagu irsaaqa beenta waxaan ka helaynaa inaan jirin runtaannu sheegaynaa ummaddan khataro fara badan ayaa ku soo foolle kale waxaan rabaa inaan tilmaamo ninka la yidhaahdo guddoomiyaha baarlamanka dowladda federaalka soomaaliyeed maxamed mursal shiikh oo loo yaqaano mooge waxaad garanaysaan iskama fadhiya meeshaasi meel la tegey ma ahan meel lagu tegey ma ahan abbaynabiyey laguma tegin ii kaalmee laguma tegin meeshaasi waxaa lagu tegey rag xaniiyahoodu qaarkood ay u dhinteen baa awood qaybsi baa lagu tegey matalaad shucuub dhan ama qowmiyad dhan baa lagu tegey waxaan ula jeedaa ambashator maxamed mursal shiikh walaalayaal sidaad og tihiin jagada uu ku fadhiyo ma ahan maqaayad nin uu furtay ma ahan oo siduu doono uu ka yeelanayo waa jago aniga adiga iyaga annaga dhammaanteenna ummadda soomaaliyeed gaar ahaan meesha uu ka soo jeedo koonfurta soomaaliya uu ku matelayo weeye mursal in badan ayaa laga aamusnaa khaladaadka tirada badan uu sameeyey wax la soo koobi kara maahan intaasi waxaa looga aamusnaa in hadda ka hor markuu safaaradda hayey wax badan uu soo qabtay waxaa looga aamusnaa in aaraaree uu u soo dagaalamay dhegtiisu biyaha ay ugu qubteen dabajeex isagoo wata dhulka oo xorayn rabo bac uu saartay dhoobada uu dhex seexanayay si dalka uu difaaco waa uu ku meedsanyay laakiin xaar ayuu marinayaa burush xaar leh ayuu marinayaa wixii uu soo qabtay waa sheekadii mukulaasha ama dumadda ama yaanyuurta ilmihii ay dhasho intaas oo macnihii bilood ay waddo haddana iyadaa dib u cunta dibay u cuntaa markay dhasho ilmiyoon dhaqaaqin ay dib u cuntaa waa laga celiyaa cunugay reebaysaa laga celiyaa mursal sidaas oo kale dhabbahaas ayuu ku socdaa ummaddii koonfureed oo maanta isagaa u weyn jagada uu ku fadhiyo
aabbihii ugu weynaa weeye waa kusimihii dowladda federaalka soomaaliyeed madaxweynihii weeye mooge waxaan u sheegaynaa saa ogtihiin walaalayaal maxamed mursal dhallinyarada isbeddel doonka ah marka aan ka imaanno xildhibaanadii uu rafaadiyey ee ma arkayse tashkiilinta iyo brobleemkao dhan uu ku sameeyey marka aan ka imaanno waxaa loo qoray warqad warqadda waxaa u qoray ummadda koonfureed baa u qortay waxaa gaar ahaan u qoray dhallinyarada koonfurta soomaaliya ka soo jeedda dhallinyarada ummadda koonfureed ka soo jeedda ayaa u qortay oo rag iyo dumarba leh oo diiday mansabkooda iyo masiirkooda inay iibsadaan oo shilimaad yar musqusha la geynayo ay ma arkayse nabar iyo naxdin ama nabad iyo nolol tuugada sheegatay waxa ay wataan macnihii diiday inay u iibiyaan waxaannu garanaynaa warqadda waxaa loogu qoray oo wiilashu ay ka badan yihiin intaas gabdhuhu intaas ay ka badan yihiin markii warqadda loo qoray oo la yidhi maxamed mursalow guddoomiyihii baarlamankaa tahay waxaan rabnaa inaan kula kulanno annagoon macnihii xoghayntaada aynan soo marin annagoo meel kale aynan kuu soo marin waxaannu doonaynaa shacabkii koonfureedaan nahay oo adigu aad matalaysay inaan kula fadhiisanno kula hadalno kaala hadalno kaalinta aad ku yeelan kartid koonfurta soomaaliya masiirkeeda iyo doorashadeeda iyo waxa kaaga aadan daafaca dadkan farmaajo iyo kayre ay duulaanka ku soo qaadeen qaawan caalamkii xataa uu gurmanayo baanu kaa doonaynaa mawqifkaagii meesha uu taagan yahay in aan ma arkayse foolkafool aan noogu warrantidaa la yidhi maxamed mursal warqaddaasi loo diray markuu ku arkay shakhsiyaad caan ah oo weliba ay isu dhow yihiin jufo ahaan haddii hoos loo noqdo ay isku jufo hoose yihiin markuu arkay warqaddii iyada ahayd jawaab inuu soo dhiibo wuu diiday waa uu ka gaabsaday xoghayntii warqadda u geysay wuxuu ku yidhi jawaab uma hayo taa waxaan ula jeedaa soomaalidu waxay tidhaahdaa aamusnaan waa raalli bay tidhaahdaa ummaddan la goosgoosanayo 150 gaari rabitaanka shacabkiinnii rabitaanka dawladda maa diideen haa rabitaankeenna rabnaa maa dhahdeen mukhtaaraan rabnaa maa dhahdeen haa annagana waan idin cunaqabataynaynaa mooryaantii galguduud iyo mudug laga keenay oo dhulkiinnii aan ku soo daadinnay tuutaha dawladda aan u soo gelinnay awoodda dawliga ku joogta ayaa baabuurtiin hor istaagaysa sokorta saliidda caanaha wax kasta oo ganacsatadiinnu ay lahayd annaga ayaan dhuun qabanaynaa maadaama ay isku duubanteen oo dhahdeen masiirkeennaan rabnaa ayuu ka hadli waayey waad aragtaan 150 gaari afgooya inay taagan yihiin waxaad og tihiin bulid burufyo in baydhaba laga dejiyey wuu ka hadli waaye horta maxamed mursal oo loo yaqaano mooge waxaannu leennahay walaalayaal qofkii u moodayey inuu wax qabanayo qofkii u moodayey inuu ummaddan daafacayo qofkii u moodayey ama dadka qaarkood ku sirmi doona maxamed mursal shiikh mooge in ma arkayse ummaddan aayahooda iyo mustaqbalkooda uu kursigaasi uu fadhiyo uu ku difaacayo maanta haddii gurigiisii uu fadhiyo cidna lama hadasheen haddii maanta xataa xildhibaan caadiya uu yahay xildhibaanadaasi kale ayuu karbaashka wax kala wadaagi lahaa laakiin booskii jawaari buu fadhiyaa jawaari maxaanu shalay ku eryeynay maxaanu shalay ku haysannay waxaannu ku haysannay ummaddaasi koonfureed ninkii ugu weynaa kursiga meesha ugu weyn madax meel ka sarraysa ma leh ninka ku fadhiyuu ahaa waxaannu ugu yeernay inuu ma arkayse toobanow aa la yidhi toobanow jawaari waxaa la yidhi gambarkiisii ku hurdaa la yidhi waxaa la yidhi dabbaal intaasoo dhan jawaari waxaa ma ahayn jawaari waxa lagu haystay waxay ahayd ummaddan koonfureed oo macnihii la jarjaranayo safaaradihii la qaybsanayo
jagooyinkii kale agaasimayaashii macnihii wasaaradihii noolnoolaa nacfiga lahaa oo la qaybsanayo ka aamusi jiray maxamed mursal kursiga uu ku fadhiyo ma unsi baa lagu shubanaya war wuxuu xoola ma ahan miyaa la qalanaya war neefka xataa haddii ma arkayse lo u yahay ama aray u yahay ama geel u yahay waad biraysan kartaa haddii sida aad rabta aa ka weys hadduu caana yareeyo haddii neefku ma arkayse rarkii aad ugu tala gashay uu qaadi waayo haddii ma arkayse macnihii buubaalnimadii aad ka rabtay ratiga uu noqon waayo de waad biraysanaysaa hilibkiisii oodkacaad ka dhiganaysaa qaarna qur'aan baad dad ugu akhrinaysaa waalidiintaada inta mowtada ah iyo inta nool waana ka noolaanaysaa laakiin maxamed mursal miyaa la qalanayaa ma neef arya oo kalaa loo qalan ma hilbihiisaa la cuni ma caanaa laga lisan muxuu qabanayaa kursigaasi muxuu ka qabanaya haddii ummadda uusan ku difaacaynin hadduusan ummadda uusan ku difaacaynin difaaci warkiiba dhaaf bal isagii ayaaba ma arkaysa burburka qayb ka ah isagii ayaaba nabad iyo nolol nabar iyo naxdin isagii ayaaba ma arkayse shidaalka isagii ayaaba siinaya sow ayaan darro ma ahan sow ayaan darro ma ahan wuxuu yidhi hadal raagay baa wuxuu yidhi nin saaxiibkaya uu ii sheegay oo maanta uu ii sheegay baa wuxuu ahaa ratibuuba waa la arkay macnihii nin aan rijaal mudaayey ama nin aan rijaal u malaynayey ayaa ri oo kale u yeeruu yidhi nimaan rijaal mudaayey ri oo kale u yeeruu yidhi rati buubaala waa la arkayuu yidhi rati buubaala ah waa la arkay hadda ma fahmaysaa rati buubaala waa la arkay balse laakiin ya racankaa halaabaana waa la arkaa macneedu waxay tahay war nin aan rijaal u malaynaynay oo magaciisu meel dheer taagnaa ayaa sidii riid oo kale u dhawaaqaya waa maxamed mursal shiikh oo loo yaqaano mooge arrintaa iyadaana waxba macnihi wax la qaadan kara maahan laakiin waxaanu ku daraynaa intaasi culimo hadday wareerto culimo gaajootay caddiinna way cuntaa maxamed mursal baabuurkan socda ee dheeraynaya dabayshan xoogga badan ee koonfurta soomaaliyeed rabitaankan shacabka ah haddii uu ka dayn waayo dhibaatada haddii gaarigaasi uu ma arkayse lugta uu soo saaran waayo ummaddiisa uu wax la qabi waayo ya mustaqbilka calooley macnihii sidii culimada abaarta oo kale berri ka saa damba 2 sano way soo dhammaanaysaa culimo macnihii gaajootay ya ama culimo caddiin weyday halooleyna way boobtaa lir waad imaanaysaa baydhabo iyadoo xor ah waad imaanaysaa baraawo iyadoo xor ah waad imaanaysaa iyadoo ummaddan koonfureed siinka dheer ay xiratay ilaa 4 rukun haddii la doono awood ay ku macnihii muquunsan karto cadow kasta ka soo hor jeeda dhulkeeda ay dhacsan karto askar leh tuutaysan nambaraysan way imaanaysaa biidni illaahi baari ummaddu waa isku tashatay waxaan leeyahay mooge safka soo gal ha noqonin maxamed nuur caliyow oo kale ha noqonin dadkii ummaddan macnihii dalkan gubay oo caydiid u soo kaxeeyey oo 2 xaboo baasta ah ku beddeshay deegaankooda iyo baabuur yaroo raaxaa iyo gabar yar oo ma arkayse macnihii u tuutuujiso u moollaysa ku beddeshay ummaddan aayaheeda eeg hooyada dhallaanka ah ee dhallaanka wadda oo ma arkayse ubadka saqiirka ah dhabta ku sida dhallayda iyo dhalloyda macnihii dhabiga lagala daba dhankaxay ee macnihii dhaadaanka macnihii loo qaatay ee ma arkayse dhaadka yar ee dhibaataysan oo qoryaha xaabaha macnihii iyadoo macnihii dhabar ku sida cashuurtii laga sii qaaday haddana lagu gowracayo war u nax ummaddu nolol ha gaadhee oo dubka gaajada ay dadka ku dhejisay iyagoo macnihii webiyada ay isugu go'an yihiin biyahooda laga iibinayo waa inaad naxdaa waa inaadan u fakerin calooshaada oo kale walaalayaal waxaan u gudbaynaa khatarta kale ee soo socota waa maxay waxaan rabaa halkan ummadda koonfureeda inaan idinkaga sheego gabadha la yidhaahdo hani gabadha la yidhaahdo oo caydiid oo aad u taqaanaan ummad yahay koonfureed
naardiir aad u taqaanaan gabadha ilma adeerta la ah hawl culus ayay baydhaba ka wadaa ma ogow sii ogow oo ma arkayse ka dherag gabadha iyada ah oo la yidhaahda hani oo 30 jirka ah hadday u booddo oo 28 jirka ah haddii ay ugu yadhahay magaalada baydhaba joogta balaan f ma ahane balaan e naagta ka shaqaynaysa weeye caloolkuus wax yar farsamo yaqaanka ila hadlaya telefoonkaaga ha may meelaha ka fiiri raalli ahaada farsamo yaqaanka telefoon rabaa in war u naga siiyo waxaan rabaa gabadha iyada ah oo aydiidkii gubay Soomaaliya gaar ahaan koonfurta Soomaaliyeed guryaha dadka ku gubay dhalinyarada 20 iyo 70 idiin toogtay gabadha la dhalatay ee baydhaba joogta oo ninka la yidhaha caloolkuus oo gobolka shabeellaha hoose in uu dhiibo hadduu guulaysto meesha u fadhiyoo dhaadaanka u soo qaatay kaa u ballan qaaday $7,000 haddii uu guulaysto iyo haddii uusan guulaysanba iyo hadduu guulaysto mansab weyn u ballan qaaday iyo afgooye in ma arkayse looga dhigayo gubernatooraha ama guddoomiyaha degmada afgooye uu u ballan qaaday caloolkuus waa caydiid in adeertii gabadha iyada xildhibaanada gaar ahaanaan u sheegaya baydhabay fadhidaa baydhabay joogtaa iyada iyo naag la yidhaahdo faadumo oo iyaduna koonfurta Soomaaliyeed u dhalatay laakiin cirkaa ilaahay ka soo riday oo iimaanka ma arkayse macnii dabada kaga baxay oo afarta taawal iyo hambareega uu soo go'ay isku qol bay ku jiraan haddii ay idaawanayaan wayba idaawanayaan haddaysan idaawanayna xildhibaanadu ha ogaadaan qorshaha ay u socdaan waa maxay qorshaha ay u socdaan maxay tahay faadumadaas iyadu weliba dad caan ah oo baraha bulshada ku jira ayay waxay u tahay eedde ay u tahay cimrigeeday soo liqday xilligii tusbaxa ay qaadan lahayd ooy meel fadhiisan lahayd ayaa lagu jiraa muqdishow ayay uga soo baxday deegaankeedu in ay burburiso ay baabi'iso waana habraha isrugruga weeye isrugruga oo ma arkayse iyagoo waayeelo ah isyaryareeya candhasaabka cusleeya xabadka aad u xidho weeye si gabar yaraa tahay lagu yidhaahdo islaantaasi 45 ilaa 50 sano jirta faadumo la yidhaahdo iyo hani waxay wada joogaan waxaad garateen baydhabay joogaan qorshoodu waa maxay waxaa la shaqaynaysa gabar uu dhalay halyeygii ilaahay ha u naxariistee shariif xasan sheekh aadan uu shirqoolay sida la sheegayo madoobe nuunow maxamed oo 6 gobol ee koonfurta Soomaaliyeed madaxweynaha u noqday oo xamar lagu shirqoolay gabar uu dhalay oo iyaduna 35 sano hadday u booddo macnihii hadday kor u booddo 35 jir ah oo inay hadda maanta baydhabo u dhooftay aanan ogayn laakiin muqdisho ku sugan ayaa wada shaqaynaya waxaa weheliya wiil isaguna indhashiina leh oo inkaari ku dhacday oo weligiiba macnihii qabqablayaasha iyo ummaddan dadka macnihii goosgoosta xafiisyadoodu kabaha u baalushi jiray u tirtiri jiray markii ugu dambaysay shariif xasan macnihii buunbuunin jiray markii dambana shariifka markuu banjaray ka soo jeestay oo la yidhaahdo cabdisataar nairobi jooga weeye oo xafladaha lafta gareen iyo caloolkuus nairobi laga abaabulayo ninka abaabulayay weeye oo ma arkayse dhallinyaraad tashkiilinaya oo qabiilka iyo isu horkeenka ummadaha macnihii furaya weeye waa haamaanyaro kale isaguna si afartaasi waxay ka shaqaynayaan labadaa baydhabay joogaan aydiid gabadha la dhalatay oo ilma adeertala ah oo mudug ka soo jeeda aniga dumaashi bay iigu aadan tahay si haddaan u fiiriyo waayo xaaskaygu waa reer mudug
waxaan u leeyahay mudug ka soo jeedda waxaan idiin sheegaynaa gabadha iyada ah ayaa hoggaaminaysa islaanta kale ee cajuusada ah 45 ilaa 50 gaadhay laakiin u dhalatay baydhabo koonfurta Soomaaliya ka soo jeedda oo maanta labadoodu qolka ku wada oodan yihiin baydhabo joogaan waxay u socdaan xildhibaanadu markii horena way tashkiilin jireen iyagoo xamar jooga haddana tashkiilin cusub ayay soo alifayaan berri ama saa dambe waxay dhihi rabaan xildhibaanada macnihi waxay ku dhihi rabaan xildhibaan kasta dekadda hadda baabuur ayaa noo taalla waxaanu keennay 42 gaari baa dekadda muqdisho noo taalla u fiirsada sida ay dadka u kala gedi rabaan waxay dhihi rabaan u codeeya abdi calool kuus iyo lafta gareen u codeeya xildhibaankii u codeeya ballan annaga ayaan idiin qaadnay qof kasta gaari cusub oo nuuca raaxada ugu qaalisan waxay soo qaateen sawirro baabuuray wataan si xildhibaanada ay u tusaan laakiin sawirradaasi waa been waxba kama jiraan annagu hadalkaasi iskama aynan dhihin waan soo baarnay safarkoodaan ogayn warbaahinta ku bahowday Southern Media Cooperation sirdoonkeeda halista ah dekadda muqdisho waxaa loo diray sirdoon baabuurtaasi in ay yaalaan dekadda xamar muqdisho iyo in aysan online baabuurta iyaga ah ay sheegayaan waa propaganda been ah oo rabaan xildhibaanada laga bilaabo berri maadaama maanta codkii uu dhacay balaankii G in ay ku galaan si xildhibaanada ay u qaldaan oo hunguri weyn looga soo rido waxaad ogtiin xildhibaanadan waqti hore waxaa loo hunguri weyn loogu soo riday in 100 kun ilaa 200 kun oo dollar xamar lagu siinayo waa tii diyaarada lagu soo qaaday u fiirsada mar walba qatara ayaanu ka digaynaa haddana intee laga galaabaa la yidhi ilaan xildhibaanadu waxaa ku jira mid hadda ka hor yiri oo kale shariif xasan markuu joogay shariif hadduusan aniga xildhibaan iga dhigi lahayn goormeen futushaari xiran lahaa goormeen idin soo hor istaagi lahaa mid dhaha ayaa ku jira oo balcan baacuuri macnihi hal bacaad lagu lisay aqoon ka ah waxba aan kala ogayn oo buuran caga ballaaran ninna maaha naagna maahan naanaabad isnacday oo kale ah ku jira sidaasi daraaddeed si loogu qaldo oo soodkan hal mar keliya looga xado dadka ileen waxaan waa sida macnihi xabadda oo kale soodku xabaddu kol hadday baxdo marka xabaddu ay dhacayso iyo bixitaankeeda horeeya markay sidaa u baxdo xabadda qofkii dagaalamaa yaqaana dhawaaqa wuu dambeeyaa laakiin fulayga wuxuu u maleeyaa dhawaaqa inuu horeeyo oo xabadda ay soo dambayso xabaddu markay yeedhuu gambadaa fulaygu no xabaddu mar hadday dhawaaqdo way ku dhaaftay ama way kugu dhacday macnaheedu waxay tahay codkan waa sida xabadda oo kale mar hadduu sidaa u baxo beso way ku martay xildhibaanadu waxaan u sheegaynaa gabdhahaasi oo caydiid la dhalatay midna ay deegaanka u dhalatay madooba nuunow midda uu dhalayna muqdisho ay ka soo baagaraynayso ooy rabto dalka in la qabsado ee cabdisataar ninka la yidhaahdo isaguna indhaha shiinaa leh uu hoos ka dagaalamayo dhallinyarada uu tashkiilinayo waxa qabiilka facebookga macnihii hawada laba qabiil isu marinayo uu aabba iyo hooyo u yahay waxaannu ka digaynaa xildhibaanow baabuurtaasi waxa kama jiraan hadda aan idinla hadlayo annagaa u dirnay dekadda sirdoonaan u dirnay waxa ay sheegayso gabadha la yidhaha hani oo caydiidka la dhalatay baydhabo maanta xataa qol kama soo bixi karaan qolay ku jiraan baydhabo meesha ay ku degeen ay sidaa ugu jiraan li'annahu bannaanka hadday soo baxaan in la aqoonsaday ka baqayaan xaqiiqo weeye warkaasi wayna og yihiin iyagana way ka warqabaan dadka baydhabo macnihii ka soo qaaday garoonka ee dejiyey meesha hadda ay ku jiraanna way ila og yihiin way fiirsan doonaan sidaasi daraaddeed beentu hal lug bay leedahay waxaa la yidhi beenlow nin maqan iyo nin mootan ayuu markhaati ka dhigtaa war quudka waxaa u aabba ah biyo weeye quud aabbihii biyo weeye war abidkaygu amiir miyaan ahaan karaa wuxuu sow adduunyo maan war weligaa ma addoon baad ahaan kartaa weligaa ma nin la haystaad ahaan kartaa
weligaa ma arkayse ma buuran caga ballaaran ninna maa naagna maa naabad isnacday ma hoteellada lagugu sheekaystaa annagaa kuwaasi gabadhaa waxay ahayd markii kambaynka ay soo gelaysay hani gabadha la leeyahay gabadhii waxay ahayd caloolkuus markii qandaraaska uu soo siinayey oo 7,000 uu ballan qaadayay gabadhii tiri bay ahayd markii la weydiiyey war adigu maxaa baydhaba kaa galay maxaa macnihii markaasaa waxay tiri oo la yidhi wax ma ka qaban kartaa kambaynkan oo lafta green iyo caloolkuuska ay doonayaan subag buure iyo kayre macnihii ma u soo saari kartaa marka la yidhi markaasaa waxay ku jawaabtay wararko anuu ma karo ereyga ay dhahday waayo anuu qabiil afkayga waan ka ilaaliyaa laakiin waxay tiri macnahaba ka qaato oo war kuwaan reer koonfurka ah maxay yihiinay tiri maxay og yihiin ha durbaanna loo tumaa xataa haddii aan mari waayey tiri xildhibaanada gabdho yaryaraan u soo kaxaynayaayay tiri oo 12 jir ah oo naasabixisoo mulay ah u fiirso niman yahow reer koonfurow gogorodda nimankan gogorodana way feedaan nimankan wax saalan maan si danahooda ay u gaaraan nimankan yuhuudda way ka daran yihiin nimankan cadowga idinku ah wallaahi bilaahi tallaahi yuhuudda way ka daran yihiin danahoodu iyo masaaliixdoodu si kasta ay ku heli karaan xalaal iyo xaaraan way ku raadinayaan dabaday bannaynayaan gogorodday idin furayaan waxay yidhaahdeen waxay tiri gabadhaasi nin reer koonfur ah miyaa diiday tiri yaa haddii ma arkayse gogorodda aan u furno haddaanu nahay hee waxay ku dartay hadda sheegi maayo anigu ya waa qasabay tiri annagaa dhalaalinayna wadnahoodaan qabsanayna si kale haddaan ku geli weyno xilkana ma arkayse waxay ugu shubaayeen meeshay doonayaan gabadha iyadaa baabuur keliya ma wadee wasaaradda hoosena way waddaa oo badan haddaad leefi lahaydeen iyo haddaad hoos u eegi lahaydeen fannaankii uu heesay wuxuu yidhi xildhibaanow heestaasi ha ku sifoobin hoos markaan u eegay qacindhaan ku siiyaa ma leeftaa ma liiqdaa i qabata haddaad dhihi lahaydeen iyo haddii googoroddaasi furan adinkay idiin taallaa aad dhihi lahaydeen oo masiirka aayihiinni iyo ummaddiinni iyo diintiinni sharafta lahayd ee nebi maxamed lagu soo dejiyey oo iyadu xataa koonfurta soomaaliyeed khatar ku jirta aad badbaadin lahaydeen adinkay idiin taallaa sadar cad su'aal ka dhan sida waabarka ayuu xaqa u cad yahay qofkii caasinayow ummaddan ku caasinayow ummaddan ma arkaysa iyo aayaheeda iyo ilaahay diinkii ummaddan dulmin ku caasin lahayow xaqa macnihii laba weeye laba waddaa furan fariiqu fi ljanna iyo fariiqu fi siciir qofkii ummaddan difaaca oo dhibban oo badbaadiya ummaddan maanta rasuul in loo soo diro haddii nebi uu imaan lahaa dambe aniga waxaan aaminsanahay ummadda nebi ilaahay u soo diri lahaa reer koonfuray ahaan lahaayeen bikaas dhib waa loo dhameeyey dhibka adduunyada waa loo dhameeyey laakiin ilaahay baa khatimay oo qaatumul ambiyaa nebi maxamed uu ku dhameeyey maadaama nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qaatimul ambiyaa uu ahaa nebi dambe imaan maayo laakiin rasuul wuu imaanayaa rasuul ciisaa imaan doona oo la tukan doona ummaddan rasuulna wuu imaadayoo wuu idiin soo diray ilaahay mukhtaar roobow rasuul weeye waa rasuul ilaahay idiin soo diray rasuul waa maxay mid la soo diray soomaan dire ilaahay idiin soo diray weeye ninkan isagoo jiifa haddaad ka faa'iidaysan weydaan haddaba mar kale ayaan boorin doonaa war dagaalku iyo khatartu waa ay fara badan tahay baabuurtaas keliya kuma eka 42 baabuur ayaa dekedda ii taalla qorsho ah ayay ku howlgelayaan xildhibaanada ay rabaan inay ku shukaamiyaan 42 gaari waannu ka digaynaa waa been xildhibaan dhoohanow xildhibaan tanagow xildhibaan looxow xildhibaan buuranow waa waxba kama jiraan baabuur haddii aad rabtid iyo markabba dekeddaada baraawe iyo marka ayaad adigu kala soo degi doontaa adoo sharaf leh taa ku xisaabtan naagtaa iskala qaadqaadaysa oo qolka baydhaba ku xidhan maanta oo u timaaday adeer mudug 1,500 kilomitir bay isu jirtaa iyo baydhabo jidkaas dheeray soo martay
muqdishay timaaday calool kuus bay heshiis la soo gashay baabuur keliya sooma wadda ee macnihii balaan hadduu guul darraysto waxaa sii raacaya gabdha noolna way u ballan qaadaysaa waxaa lagu canaantaa ummadda koonfureed mas-uulkooda in la guursado ay wax guursadaan maahan in la guursado li'annahu ummaddan kale marka gabdhaha koonfureed ay guursadaan way ka gooyaan inta badan deegaankoodu iyagaa isku dara way ka gooyaan siyaasiyan dhaqaaliyan iyo nooc walba laakiin ninka koonfureed marka gabadha xaggaa ka timaaday ee deegaankan u cadowga ay timaaddo ay gacanta ku dhigto waa lagu shaqaystaa waa lagu adeegtaa waana sifo ka mid ah sifooyinka yuhuudda weeye sidaasi daraaddeed xildhibaanow googoradaha ayaan la idin tusin googorad waa inaad ka weynaataan markan runtaan idiin sheegaya qoftaa iyada ah baabuurta ay sheegayso oo moobeelka ay wadato hani gabadha la leeyahay oo idin tusi rabto waxba kama jiraan sawirada ay waddana waxay ka soo qaadatay internetkay ka soo qaadatay sawiro baabuur been ah weeye ma ahan baabuur dekedda muqdisho taalla oo macnihii ay idiin soo wadda maahan laakiin xitaa haddii baabuurtaasi ay run tahay war ma baabuur baad ku iibsanaysaa dadkaaga iyo deegaankaaga su'aalaha loo baahan yahay inaan isla fahamno ayaa waxay tahay war gaari xun xataa haddii ay noqoto miyaad dadkaaga iyo deegaankaaga iyo masiirkaaga ummaddan kacdoonka samaysay miyaad ku iibsanaysaa weeye su'aasha anugu waxay ila tahay caqliga saliimkaa ma oggolaanayo mana yeelayo macnihii sheekh mukhtaar roobow cali abuumansuur waa shaksi ka mid ah dadka deegaanka koonfurta soomaaliyeed u dhashay war imise milyan buu diiday shariif xasan sheekh aadan waxaad ogtihiin cali shaamey inuu u diray isagoo muqdisho jooga shariif xasan sheekh aadan cali shaamey oo chief of staffkiisii ahaa inuu muqdisho u diray mukhtaar oo iska jiifa ummadda macnihii uusan u jawaabin uu ku yidhi war kuwaan muqayliinta ah shariifaa dhahay anigaa ka adage abtiyow adaa ii darane 80 milyan qaado iska fariiso oo mukhtaar diiday war sidaasi waa inaad noqotaan khayre iyo farmaajo bixitaankiisii mukhtaar baydhaba habeen dhan ay la shiraayeen jagadaa rabti qaado 80 milyan qaado wuu diiday war nimayow meeshan dhaqaale ma yaal $5,000 xoola ma ahan berri baad xaaraysaa berri baad ma arkaysa ma xaaraysidii xataa dhuusay kaaga baxaysaa $5,000 maqalka kugu go'an iyo musiibada ku haysata iyo gaajada macnihii raagtay ee shariif kugu riday kaama saarayso mid qudhaa kaa saaraysa rabbul carshulcadiima kaa saaraya tan xigtana biyo sacabadaadaa looga oonbaxaa baa la yidhi war ninka 5,000 adiga ku siinaya ninka buludburuufan ku siinaa ku leh ninka adiga derajada kuu ballanqaadaya ogow hal gobol xataa ma leh farmaajo hal gobol oo soomaaliya meel ay ka degaan ma jirto macnihii anuu laangaab waa dhihi maayo laandheero waa dhihi maayo qabiil kama hadlaayo laakiin hal degmo oo caabudu waaq ay dhahaan oo mar uu booqanayeyna dadkiisu xabsi ay dalbadeen maxaad dalbanaysaan markuu yidhi xabsi hana loo dhisay yidhaahdeen uu xabsigaasi uu dhagax dhigay uu soomaaliya ka degaa khayre hal degmo oo soomaaliya ka tirsan caasimadda marka laga reebo gobol ma jiro ceelbuur waad ogtihiin macnihii kala bar oo bar way ku qaybsan yihiin isaga iyo reerihiisi marka dad noocaasa war adiga oo dhulkii hodanka lahaa adigay ahayd inaad farta ugu yeertid adigay ahayd inaad tirahdid war yaa anaa intaas ku siinaya orod deegaankaaga soo burburi adigay ahayd salla cala nebi war yaa macnihii ceebta waa loo dhintaa sharaf baana la doonayaa adduunkan iyo cizi in lagu noolaado war qof adiga kaa liita oo adiga bread basket u ah oo adiga kaalmo kaa raba oo adiga ku tuugsanaya oo adiga dhaqaale kaa doonaya inuu ma arkaysa carab dhaq intuu ku soo siiyo war midnimadaada iyo jiritaankaaga burburi uu ku yidhaahdo oo aad aqbashidood soo dhaqaaqdid oo sidii lo'da oo kale baydhabo aad timaadid isla markaana waxaan loo joogin iyo qabyaalad aad ku hantaatacdid dee wax meesha qabta maahan sidaasi daraaddeed adigaa hodan ah
adiga ay dekadahaagu intaasoo sano la diidanaa inay furmaan maanta kuu furmayaan adigayba Soomaali ku jeclaanaysaa ku caashaqaysaa adigaaba dadkaagu dadka u sharaf badnaanaya adiga ayaa lagu soo haajiraya adiga ayaa ahaa midka United Nationska qorshaha uu wax ku dhiibo soshaalka ummadda Soomaaliyeed siin jiray iyagoo qaxooti ah oo musaafir ah oo qariib ah oo dhibaataysan adiga qofkii ku soo sheegta adiga lagu soo sheegan jiray adiga xoolo siin jiray adiga qofka hal maalin taajir ka dhigi jiray adiga beer u goyn jiray adiga gabar u dhisi jiray adiga hal sano taajirnimo gaarsiin jiray adiga beerta u fali jiray ma jirto there is no way there is no justification and pretext ma jirto marmarsiyo iyo sabab adigu ninka liita oo sheegad kugu ah shalay sheegad kugu ahaa macnihii ku tuugsanaya in ma arkaysa adigu uu ku amro oo ku yiraahdo burburi danahaaga arrinka iyada ah waa arrin macnihii laga ogolaado in aakhiro looga haajiro adoo sharaf leh intii taasi la qaadan lahaa macnaheedu wuxuu yahay marka waan soo koobaya doodana waanu qaybsanaynaa walaalayaal waanu ka digaynaa xildhibaanadan u sii digaynaa horeyna waan idinkugu dignay faadumo oo koonfurta Soomaaliyeed u dhalatay iyo hani oo mudug u dhalatay ka soo jeeda aydiid ilma adeerala ah afgooye loogu ballan qaaday caloolkuus ugu ballan qaaday gudoomiyaha degmada afgooye in uu ka dhigi doono gabadhaasi oo 30 jirka ah iyo islaanta Faadumo la leeyahay 50 sano madaxa sii gelinaysa laakiin isyaryaraynaysa oo kayshali ama candhasaabka xabadka cusleeya ama bakhtiya noolays ku celcelisa suugaga si aan looga dareemin da'da bay dhabo qolka ku xiran shaqada ay u socdaan ay bari taageerayso madooba nuunow halyeygii gabadhiisu muqdisho joogta uu macnihii geestana macnihii ka bacraminayo cabdisataar oo lala ugu jira campaign xildhibaanada in been loo sheego baabuuro loo ballan qaado lacaga waalan loogu ballan qaado bal iyaga nafsadoodana lagu soo shaqo geliyey 7 kun bes lagu soo shaqo geliyey waxaanu leenahay xildhibaanadow maanta geesinimada aa muujiseen 134 aad ugu codayseen mukhtaar roobow cali abu mansuur in tartanka doorashada aan laga reebi karin oy doonayeen nabar iyo naxdin in meeshaasi ay macni u soo maraan mukhtaar si loo reebo shilimaadkoodana aad ka qaadateen rabitaankiinana uu shaqeeyey quwaddiinu aad aragteen oo shahaadooyinkii sidii loo bixiyey ay noqotay oo nabar iyo naxdin ay doonayeen shahaadooyinka haddana dib in loo dhiibo xujana looga dhigo mukhtaar in la reebo habraaca lagu dilo rabitaanka shacabka ood been weeye aad tiraahdeen waxaanu leenahay ka digtoonaada canaasiirtaasi deegaanka aan u dhalan iyo kuwa u dhashay ee hadda aan idiin sheegnay oo shaqo iyo shuqul toono aan ku lahayn sideeda ahaanba ummad yahay marka dawladdan ay guulaysato waxaad u baahan tihiin qorshe aad u dheer dadkeennaasi bidaarta leh anigu jaahil baan ahay kuwa aniga iga bidaarta weyn koonfurta u dhashow waxaa la idinka rabaa in madaxweynaha Maraykanka waxaad ogtihiin markuu is-casilo ama xilka uu ka dego lama buriyo dawladdu meel bay fariisisaa madaxweynayaasha si khibradoodu waayo aragnimadooda dalka loogu difaaco caalamkana loogu sii haysto waxaa loo baahan yahay dawladda soo baxaysa dadka aqoonyahanka ah dadka deegaanadan iska leh fikradahooda si macnihii loo ururiyo guriga aqoonyahanada in la dhiso oo talooyinka keliya macnihii ummaddan maxaa dhiboo soo maray la qoro ummaddan xaggee laga soo geli karaa la qoro macnihii dad waxaas keliya qora indho u ah oo madaxweynaha siyaasiyiinta baarlamanka geedi socodka hanaanka ahdaafta guud mabaadiida guud ee ummaddan koonfureed ka taxadaraya oo jirid u ah culus in la dhiso weeye oo dawladdu ay maalgeliso oo qofkaasi biilkiisa uusan ka fakerin
oo ma arkayse laaluush uusan macnihii u hanqal taagin fikrad keliya keena li'annahu villa soomaaliyaba dad noocaasa fadhiya ummaddan sidii loo jari lahaa loo gumaadi lahaa lacag loo siinayo sidaa la ajligeed marka waxaan ku talinaynaa cajuuso tiri baa la yidhi ayaydaa ka bilow wallaahi dareen baan hadlaynaa dhiig baanu hadlaynaa xil ma doonayno jaga ma doonayno xoolo ma doonayno adduunyada inta berihiisa aan soo cunay maanta haddii la tiriyo baabuur ma qaado haddana waa ka baahanay inta ilaahay noo qorayna adduunkan intaan la abuurin ka hor bani aadanka intaan la abuurin adduunkaa la abuuray adduunyada intaan la abuurin ka horna bani aadanka iyo noolaha imaan doono wuxuu cuni lahaa 50,000 oo sano ka hor ayuu ilaahay qoondeeyey 50,000 oo sano ka hor waa wax meel ku qoran la weyn maayo waxaa loo baahan yahay aniga iga bilow nin kasta oo ma arkaysa naag ajnabiya qaba oo koonfurta soomaaliyeed badbaaday u baahan tahay mustaqbaliyan for the next century qarniyada soo socda ah nin kasta oo naag aan u dhalan koonfurta soomaaliyeed faysal cali waraabe iyo somaliland markay dhahaysay ajnabi nin qaba xil kama qaban karo meel dheer bay ka fekereen annagaa hadda qaadanayna waan la yaabanayn laakiin haddaan qaadanayna reeraha inaan dumiye ma rabo laakiin gabadha koonfurta soomaaliyeed ka soo jeeda oo nin kaloo koonfurta soomaaliyeed aan ka soo jeedin macnihii ku qabaay laba mid gal ama ninka iska soo fur haddaad rabtid xil ama xil ha ka qabanin ummaddaada nin reerkaaga dhaqo ummaddaada macnihii aamusnaan ku difaac haddaad rabtid wiilka reer koonfurka ah ee gabadha reer koonfurka aan qabinow adigana waxaad ku qasban tahay reerkaagaan duminaya hadda ilaahay ma oggola reer in la dumiyo gurigaaga joog siyaasad ha soo gelin siyaasad haddaad soo geshida xil inaad qabatid aad rabtid soo furnaagta dastuur ha la qoro tilmaamaya nin aan koonfur soomaaliyeed u dhalan inuusan jaga ka qaban karin hadduu jaga ka qabtana ha loo oggolaado inuu dhulka xaaqo isbisiini ama iskaafenjer inuu noqdo bes iskaafenjer ilaan yuruba dhulkaa lagu xaaqaa 90% soomaalidan istaagtaagaysa ee tayga wata america iyo yurub ku nool nin well educated ah oo aqoon macnihii iskuulaad ka soo baxay oo yurub taay ku xiranaya wuu yar yahay taygan bannaanka marka la soo baxo bay dadka inta badan xidhaan naagahan macnihii soo labisanaya almost well educated maahan dhulkay soo masaxaan oo musqulahay soo dhaqaan yaan lagu bootaynin nin 4 sano 5 sano kuliyad ka soo baxay oo macnihii isagoo shaati cad shaqa yurub ka galaya wuu yar yahay maadaama ay sidaa tahay dee dalkaaga inaa xaaqdid maxaa diidaya waa inaad dalkaaga xaaqdaa sharaf baad ku leedahay macnaheedu waxay tahay ha la qoro dastuur sheegaya ama qodob sheegaya dowladda baarlamankeeda maanta uu guulaystayow waad guulaysateen inta dhimanna ilaahay baa dhammaystira dowladdan amni iyo cadaalad marka ay bannaanka soo istaagto difaaca dalka marka loo istaago geesta kale waa in la qoraa waa in la ururiyaa dadka bidaarta leh gabdhaha waaweyn ee caqliga badan ragga iyo dumarka macnihii dalkan dhiiggooda uu u qubanayo oo habeen iyo maalin u seexan waayey aniga ha la iga saaro li'annahu aniga nafsadayda naag ajnabiyaan qabaa ma ogta anaa iska bilaabaya waa in budget la geliyaa dowladdu ay xaraysaa mufakariin dad la yidhaha mufakareen oo ummaddan koonfurta soomaaliyeed macnihii feker u samaynaya meesha loo guurayo meelaha laga soo gelayo macnihii for the next 100 year balaan samaynaya allah is the best planner ilaahay baa macnihii qorshe sameeyaha kan ugu fiican waa rabbi laakiin ummadda waxaa loo baahan yahay berri haddii qiyaamaha uu imaanayo maanta macnihii timirba tallaalaa lagu yidhi geed timir oo 6 sano waa inaad talaashaa 6 sano ma dhowa macnihii wanaag samee weeye waa xadiis nabi calayhi salaatu wasalaam macnaheedu wuxuu yahay ummadda maalin dambe baahi inay u dhintaan ummaddan oo bread basket ah oo webiyada iska leh macnihii roob in la sugo keliya macnihii beeraha webiyada oo dhan loo geyn karo degmo kasta iyo tuulo kasta
qorshayaashaasi dadkeena waa in la sameeyaa waa in mar dambe eelaydii tugsatay aan la dhihin ummadda koonfureed waa in ummadda koonfureed ma arkaysee aan la caynin never ever waa in difaac adag loo sameeya sitaa loo gaaro sitaasi loo gaaro waxaanu leenahay oon caddaynaynaa ummadda koonfureed waxay u baahan tahay waxaanu leenahay ummadda koonfureed aan caddaynaynaa in ma arkayse dastuurkaasi adag loo sameeyo ummaddan wixii ka naxaaya si hoggaanka mar walba ay ugu hayaan ummadda kalena ay ugu noolaato deegaanka si edab iyo ixtiraam leh waayo deegaanada kaleba reer koonfurku way ku nool yihiin edab iyo ixtiraam ay ugu nool yihiin siyaasad ma faragashtaan ma hadli karaan male macnihii xataa waa la dhibaateeyaa dhibkooda kama hadli karaan laakiin deegaankan macnihii habar walba iyo oday walba inuu iska soo farataysto doctor cali baab waa runta long plan term waa in loo sameeya marka doodda waan soo gaabin dooddii baan qaybsanaynaa ma arkayse baydhabo dadka ku qafilan waa ogtihiin oo xildhibaanada baabuurta u ballanqaadaya oo shaqadaasi bilaabaya dekedda baabuur noo taalla leh oo ma arkayse aan shaqo ku lahayn oo been ay tahay la rabo xildhibaanada codadkoodu in ma arkayse sidaa loogu boojeeyo waxaanu leenahay ummad yahay sida aad isugu duubanteen haddana mar kale isugu duubma qofka ugu horreeya ayaan rabaa inaan soo qabto si fakarkiisi meeshaasi uu uga dhiibto ma arkayse waxaan soo qabanayaa shamse sharafey waa ku soo qabtay waxaan rabaa in ma arkayse aad aqbashidaan rabaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo ama aad waa ku soo dalbaday aqbilaad inaad samaysidaan kaa codsan haddii ilaahay uu ka raali noqdo ruun haddaad joogtid waxaan rabaa inaad gacanta aad soo taagatid xabiiba waa ku soo qabanayaa xabiiba contacti manihin dadka ay ugu soo darsadaanu si aan isu qaban karno waxaan soo qabanayaa ninka la yidhaahdo doctor cali baab ama waxaan soo qabanayaa mustaf axmed aan soo qabanaya mustaf axmed haddii aad joogtid ma arkayse soo gal insha allah shamso aqbil waa ku soo dalbaday haddii ilaahay uu ka raali noqdo mustaf waa ku soo dalbay kamaradda qabo midnimadu waa shayga ugu muhiimsan weeye midnimada natiijadeeda hadda ayaad arkaysaan ummad yahay ummadda hadday midaysan tahay si kasta sida looga guulaysto way adag tahay taariikhda haddaan dib ugu noqonno islaamka marka lagu soo duulay oo niman la yidhaha tataarka 700 oo sano ka hor ay gam ka soo dhigeen adduunyada oo dhan muslin oo ay macnihii dhulkan macnihii ataraagta ay degto oo loo yaqaano khuraasaan iyo meel walba eber ay ka soo dhigeen oo masar la isugu keenay shamsoy iyo aqbil waa ku soo qabanaya oo la isugu keenay masar waxaad garanaysaan awal waxaa loo soo kuusay way kala tageen muslimiinta cadowgooday la safteen qaarkood iyagiyaa ishahaayey laakiin markii dambe qudus markuu soo baxay oo ummaddii muslimka ahayd masar markaasi joogtay ee hal saf noqotay waxaad ogtihiin holaaka iyo meeshay mareen oo tataarka sida loo jebiyey waxaan ula jeedaa ummadda markay isku duuban tahay lagama adkaan karo oo xaqna ay ku dirirayso maba laga adkaan karaba ilaahay baaba macnihii ballan qaaday sidaasi daraaddeed war midnimadiinnu gabadhan shamse miyaa mise qof kale waay maxaa qaldan shamse ma dhihine warkaan qof kale miyaa shamse miyaa shamse waa ku soo qabanaya mar ka bax soo noqo waa ku soo qaban lahay mar ka bax soo noqo shamse waxaas ma qorayse waa sidee ma qof kale amaanta ilama aan shamse inay tahay qof shamse kale soo qaatay waa waayo dhowr shamsaa qoran moogta facebooka marka mid un baan ku soo darsaday shamsoy mar ka bax soo gal erayada aan arkaayo shamsadii saxda ahayd maahan siday ila tahay waayo shamse waxaasi ma qorayso gabar sharaf la weeye sharaf ruun ayaan soo qabanayaa mar ruunay adaan ku soo qabanaya sharaf intay ugu soo darsanayso waayo ilaan gabadha waa la weeraray moogta haa xaliimoy dad badan ayaa weeraray shamse mursal sawiradeedana waa la saartay marka tii saxda ahayd maan waayo shamse akhlaaq daradaasi ma soo qorayso moogta shamsa lagu fool leeyahay anaa hadda u sheegay kowdha inaan arkay balse kor uu bax shamse iidaa soo gelaysa oona ka hadli doontee kheyr allaasi qofka shamse sawirkeed inay qaadatay oo nolol ay ka raadiso wallahi iikay u taallaa
aadan soo dhawow wax akhlaaq daray soo qoreen aniga dhowr shamsaan arkay maadaama ciwaankan maanta aan furay marka dhowrkii shamsaba hadda tay saxdaad waa garan waaye waa ku darsaday shamsi sharaf erayadeedaan aqaanaa qoraalkeedaan aqaanaa sida ay wax u qortoo dhan aan aqaanaa marka sawirkeedaa la qaatay qofkan marka macnihii ma arkaysa sambuuska iyo balaayada ka sheekaynaya subxaan allah okay soo dhawow ma arkaysa waxaa jira runay waxaa jira sida aad ka warqabtid waxaa jira gabar caydiid la dhalatay baa jirta oo ma arkayse magaalada muqdisho ninka la yidhaha caloolkuus uu 7,000 ugu ballan qaaday oo guddoomiyaha degmada afgooyaan kaa dhigaa uu yidhi haddaan guulaysto haddii aan guuldaraystay haddaan guulaystana 7,000 aan ku siinaayo oo ololo ii gal uu yidhi gabadhaasi waxaa weelisa gabar iyaduna reer koonfur ah oo 45 jir ah gabdhaha inaan u gafa ma rabo ilaa iyo 50 da'deedu ay tahay oo faadume la yidhaahdo oo ninkii yaqaana oo iyaduna ma arkaysa deegaanka u dhalatay oo baydhabo hadda ku maqan madooba nuuno gabar u dhalay baa bari taageeraysa cabdisataar wiil ay dhahaan baa bari taageeraya si lafta gareen iyo farmaajo ay u soo baxaan gabadhaasi waxay hormood ka tahay xildhibaanada inay been u sheegto ay tiraahdo 46 gaari miya 40 iyo dhowr gaari ayaa dekada hadda ii taal sidaasi daraaddeed xildhibaankii caloolkuus codka siiya ama lafta gareen gaari nooca raaxada ah oo qaali ah waa kan sawirkiisii anaa idin siinaya sidaas bay dhihi rabaan baydhabo beri iyo saa dambe xildhibaanada ay ku shakaansan rabaan marka arrimahaasi balka waran macnihii dekadana ma arkaysa dad baan u dirnay wariyaal kale way noo maqayn way noo soo warrameen inaan waxba ka jirna arrimahaasi ma maqasha war makaysa adiga aadanow saaka waataan ku sheegay gabar yara iga xanuunsaneed istaalaa aaday wiil dekada joogaan wacay waxaan dhaa warbixintaasoo toosanaan kaarbaan dhah in oo 46 gaari ah ii qoran ana buuga keen 40 ana ii qoran tahay wixii ay ku hadleen dhan keen soo bobsi leefan ku jira 46 gaari xildhibaankii keeno maxay xildhibaankii 10 keeno proof in la guddoonsiinayo lafta gareed haddii ay ka soo horjeesteen waatana warqada buugayga ani haddii ay lafta gareed ka soo horjeesteen koonfur galbeed xuseen hala ii cariiri oo yiri booska an horta maadu ina ajantaan aan gelin waxa rabaa asxaabta digil waxaan leeyahay digil ani qadiida koonfur galbeedan ka hadlaa waxa la caaynayo ha u maleynina waxaan rabnaa in isfahano waxa muhiim ah naagta ku tiraahday degada 46 gawaari ii joogto ay baydhabo dhexdeed beri maalinta ka dambeysay suuqa la geli rabtaa weli suuqa lama gelin caaway rabtaa in ay sheegaan ay dhahaan ii sheeg caawa inay xildhibaanada ku shiriyaan horyaal maalaha hotel horyaal iyo hoteeladaas kale ay la tagaan iyo guryahooda inay u sheegaan sawir ee mobilka ay ka tusiso saasaa la degada dadaan u diri adeerkay abeel lashtaa ka shaqeey ani degada dadaan u diri dadka u diri 40 iyo iska dhaaf 6 gaari hal gaari ma taagnaa lila buuga iyo xareey xisaabta ku jirta bas markaan tagnay oo degada aan galnay oo odayga aan la shiray wuxuu yiri wax aan ka haayo ma lahan warkaas ma hayo yiri war raxban boojada lagu keenay xildhibaanada shalay maantan in suuqa loo geliyaa la rabaa warkaan aadanow mas-uula ka tahay nin koonfur galbeed ka soo jeedata waa ku dhibaysaa shamsana hadda way ku jirtaa abdheedka haleesla ogaado degada wax taagan ma lahan ganacsata ayaa gabaari u taagan weliba 48na maba dhamano gabaarida taagan anaa soo arkay oo nadartu dhaa anoo ilaahay ula xisaabtamaa ma fahantay dadka waxa ila xun oo dadkeena oo laga dhigaayo wax ay dhulkooda iibsanayaan war fiiriya war mar walba waxaan leedahay ajantaha ee wataan hadalkay maanta ku hadlaan waa la soo sheegaa bila Soomaali gabadhaasi caydiid ku qabiilka ah oo reer muduga ah da'deedu 28 ilaa iyo 35 u dhaxaysa iyo gabadha kale ee deegaanka u dhalatay oo 45 jirka ilaa iyo 50 u dhaxaysa oo tan deegaanka u dhalatayna faadume la yiraahdo hanina la yiraahdo midda mudug ka timaaday caloolkuus ma arkayse u loobin garaynaysa guddoomiyaha degmada afgooye in loo ballan qaadayna
macnihii aniga aan maqlay sawiradana baahinayso baabuur baan idin siinaya ku haysa haddii baabuurta macnihii balaankan uu shaqayn waayo xataa xildhibaanada ay leedahay gabdhaan idin siinaya oo mulayo naasab bixisa bal ka sheekee dadkaasi iyo kuwa daba taagan oo madooba nun oo gabadhiisu ay ka mid tahay iyo cabdisataar macnihi bal kuwaasi maxaad kala socotaa ajantaha wuxuu igu soo gaaray nin baa isoo wacay cod yarba oo imaqashii wuxuu yidhi ruun hee codkaa ha iga duubin wuxuu yidhi waxaa jirto yidhi arrintaasaa socoto sawirkan kuu soo diraa gaariga facebook ha dhigin marka wuxuu yidhi caawa iyo habeen dambe warkayga dhegaysa caawa iyo habeen dambe iyo habeenka kale shaqadooda waxay ka dhigi rabaan sida xildhibaanada loo soo daadguraynaya camal in gawaari loo sheego ani waxaa ila qaldan xildhibaanadeena ila qaldan in gaari loo sheego marna diyaarad lagu soo daadguray hotel la keeno ilaahay in laga cabsadaa roon war kursiga waana niila dhiibta habar gidir iyo niima dhiibin xuseen caloolkuus waxaa nii dhiibteen beesha nii dhiibteen waa inaa waajibkeeda kasoo baxdeen marka waxaan dhihi lahay koonfur galbeed inay maanta hani waa aqaanaa aniga aqoon dheeraad umulihii gabadha madoobe nuuna waan ku bartay cabsitaar laba habeenaa arkay waa iska faanaa wax kaloo ajanta kama hay gabadha madoobe nuunowna waa gabar iska daacad ah oo maskiin ah oo qayuur socod ah waxaan gabgabtay hani wado gabadha madoobe nuunow ma wado hani iyo islaan kaloo faadimo la dhahaayo ilaa hadda wax ay qabteen ma lahan hoteelaa la geeyay allah xogta horta waa la helaa dadku waxay u maleeyaan in aan seexano waxaa qarashaad aan ku bixin xog inaan helno oo habeen imeelin maalin aan usoo jeedno ii ka wajiifaan hoteelaa la dejiyey caloolkuusaa dejiyey cabdisitaaraa dadka u faanayo wuxuu leeyahay hiigsi iyo himilaana soo weerarooyin kulaa hiigsi iyo himilo ninay wataan aqli daradooda dhegayso dadkana aan u sheego hiigsi iyo himilo markuu cabdisitaar ani waa la kulmay ajantiisa hadda maalin kale inaan ka taariikheeyo waay anoo baydhabo joogoon la joogaan ka taariikheeyaa waan la kulmay waxaan faan ahayn ma yaqaano naag mukhtaar roobow dhegayso inuu aqli daran yaan ku tusaa oosan cabdisitaar ow yahay yaa haddaan kuu sharxay xuseen caloolkuus dadka uu haysto dad nuxurle ma ahan haddaan u sheegaa xuseenow ilbaabka iska bedel ilbaabka oo kuu taagan guriga hortiisa ganjeelkaas wuu bololay kambeyn inaa geshid hadaaratid ganjeelkaas bedel mukhtaar roobow xogtiisa la wada ma aragtaada warkiisa lahaayo ma arag waa maya musharaxiin badanaa joogaan xuseen sirtiisa waxa faafiyo dadka la joogaa ka mid ah wuxuu leeyahay dhegayso xuseen hiigsi iyo himilaana soo weerartay hiigsi iyo himilo waxayna leedahay xuseena isheeg sheer garaynaynaa xuseen waa mahadsan yahay lafta garad asina waa mahadsan yahay balse baydhabo dhexdeeda haddii kambeyn laga samayn karo naaga iyo niman iyo layskugu wacanayo hoteelo iyo jaad iyo la qaadanayo bal waa la isla joogaa shamsoy waxay ku leedahay anima ihi shamsoy waa ognahay abaayoy waa ognahay macaanto ajantaa nala dhegayso adisi laguu soo qabto marka aadanow su-aalaha iweydii qofkan meesha ka hadlaya shamse sharaftii saxda ahayd maahan saan qiyaasayo iska jir ma aha waa oga qof kale waay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo sharaf runay maanta ka waran magaalada baydhabo wixii dhacay macnihii dowladda federaalka soomaaliyeed ma dhihi karee dowladda fadaradda hantooleyda soomaaliyada muqdisho fadhida ee faroociga farmaajo ee subag buura loo yaqaano iyo kayre ay hogaaminayaan makriga iyo iska daba wareegii ay soo dhiseen oo xildhibaanada koonfurta soomaaliyeed xataa muqdisho ay ugu rarteen macnihii maxay fariinoy u tahay xildhibaanadu waxa ay sameeyeen bal arrinkaasi muqdisho sidee looga hadal hayaa wallaahi maanta wiilal badana ahan bali iisoo direen anugu xildhibaananayna saan inay yihiin uma malaynayna saasaa u fikirsanaya wallaahi ana xalay ma aana hurdin balse hadda waxaan ku qanacsanay xildhibaanadeena maasha allah booski la rabay oo beri ka maalin oo soo galaa shalay odayaalaan la kulmay aan qada aan isla cunnayo oo martiqaad waxay dhaheen maanta xildhibaankii noogu hiiliyay dhaheen lacag iyo nabad iyo nolol wallaahi beri ka maalin inuusan kursiga kusoo fadhiisan doonooyin ya maanta ninkii igaga hiiliyay shisheeye in kursigayga oo usoo bareeri dooni maalin mar dambo aadanow maanta waxay taagan tahay dheesha bandiirada calankaa taagan waa lulanaysaa badweynta hindigaa xalay aan ku dhex jirnay balse saaka doonteena waxay kusoo xiratay maxay ahayd
badda hadday kusoo degaday kusoo xirto waxba barbalay malahan marka waxaan dhihi lahay xuseen campaign-ka dadka kula wada iska dhaaf dadka xildhibaanada in been loo sheegana ma rabno baydhabo anaa tagay wararkoodana anaa qarxinay waxaan leeyahay xildhibaan gaari loo haayo ma jirto degadana ma yaalo gaari degada dadaa noo joogo eelboorka dadaa joogo villa soomaali dadaa joogo wadada dheer qofaa noo taagan dadku waxay u maleeyaan in aan iska socono war mar horaa ajantaan lasoo dhisay fiiri an hal maadaan kaa dhaadhicinaa qof mukhtaar roobow xaflad u qabatay oo isku sabirtay oo difaacday nin kale ma raaci lahayd adaan ku weydina su-aashaas waa maya aniga cabsitaar anuu yirina raac hayaan dhahee maxaad ii ogashahaan dhah wuxuu yiri $1 aa lagaaga soo qaadaa $1 iiga keenaan dhah haddana laba $200 aa la siiyey dadka la waday ma kula tahay in aniga in aan raacayo iika ma kula tahay gabadhan hani laleeyahay muqdisho markay joogtay campaign-ka ay galaysa erayadii ay ku dhahday waa maxay kuwan reer koonfurka maxay dhahday hani waxay igu tiri waxba igama gelin ha soo baxno si uu soo bixinay tiri kan la xamanaayna anuu ila dhashta laakiin kuwan reer koonfurka waxay ogyihiin male wax noocaas may dhahday anaa marsiinayo reer koonfurka wax ma ogo wax ay kala ogyihiin malahan waa la sirayay tiri waa la siraa marka ajanteed saasuu ku saabsan yahay hani baydhabo dhexdeed iskaga dheedheeshi baydhabo insha allah aadanow iga qor waa maanta waa galab sabti ah waa xuroobi doontaa insha allah xuseen madaxweynaha koonfurta cabdixakiinow hadduu madaxweyne yahay cabdixakiinow hadduu madaxweyne yaho adiga in aad soo sharaxdid aad isku dayaysid digilnimo yay ku qaadi nin weyn oo waxaa tahay wax gorod isku xishow meeshaan lafta gareed markii la caaynayo oo shariif sakiin la caaynayo digil waxaa ku nacay uqdada wallahi been kuuma sheegay maanta waxaan ku nacay uqdada fiiri shalay shariif waxaa dhahnay ani adiga muslim ma ahanaan ku tilmaamno mise been waa digil maanta qof digil haddii la dhihi lahay muslim ma tihid xaggeen ka istaagi lahayn meel aan ka istaagna ma heli lahayn kuweysta kuwaa shalay waxaan la kulmay odayaal digil oo nadiif wallahi qadiyada koonfur galbeedna ka go'anta marka ilaahay soo hanuuniye magacii musiibo maalin ku raacan runay ma arkayse qadiyadan koonfur Soomaaliya aabaha hadduu soo hor istaago rabitaanka ummadda ma uga gamban lahayd adiga aabahay waaye waa ka leexana ma dhilaay wallahi billahi tallahi ilaaha idaalacana waa maghrib aabahay cali gaduudow hadduu ka soo horjeesto koonfur galbeed wallahi ma adeecay taasaa ballan ilaahay aan kaaga qaaday aadanow qadiyada koonfur galbeed maanta odayaa wuxuu iigu yidhaahday nin mariixaan iyo nin oo ii sheeg habargidir gaari ay saariin darabal iyo kirishbo ay ku kala yihiin nin garoo soo hor istaagiyo yir gare ninkii garihii wuxuu
قابكي سليخاي سدوي بكو قري وكو قدميا عاشقا تقاري المكان وين عندك وسيا كالقايل غريب المكان وين عندك وسيا كالقايل غريب الله إيقا مغادا قلبي نور عيدا قلبي نور عيدا الله إيقا مغادا قلبي نور عيدا